Asalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabay. Guryuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha aasaaska u ah nolosha. Ha yeeshee, inta badan guryuhu ama dhulalku waxay u kala baxaan laba qaybood: kuwo mar walba la kireeyo oo la iska iibiyo, halka qaarka kale ay yihiin kuwo laga dhaxlo awoowayaasha, marnabana aysan suurtagal ahayn inaad si sahal ah ku hesho, xitaa haddii aad ka bixinayso malaayiin dollar. Muuqaalkani waxaan ku soo qaadanaynaa qaar ka mid ah dadyowgii iska diiday inay ka baxaan ama ay iibiyaan dhulalkooda. Sii daawa muuqaalka. Aan ku bilaabay, ninkan uu magaciisu yahay Takao Shito oo ka soo jeeda dalka Jabaan. Ninkan waxa uu diiday inuu gebi ahaanba uu ka baxo ama uu iska iibiyo dhul markaas beero u ahayd. Beertan ayaa waxa ay ku taalay meel loogu talagalay in laga dhiso garoon diyaaradeed. Elboorka magaalada Tokyo ee Jabaan ayaa ahaa mid aan haysan dhul ku filan, midaas oo keentay in la dhiso garoon diyaaradeed oo cusub. Halkii loo doorayna garoonkaas, qayb ka mid ah waxay ahayd dhul ay deganaayeen dad beeraley ah. Dadka intooda badan waa ay iskaga baxeen dhulalkoodii, halka Takao Shito aabihiis uu iska diiday inuu ka baxo dhulkan. Ugu dambeyn, elboorkii ayaa laga dhisay iyada oo ay beerta ay kaga taalo bartamaha garoonka. Xilligan la joogo, waxaa beertan ee dhaxalka ah ku nool Takao Shito. Gurigan waxa uu ku yaalaa bartamaha mid ka mid ah laamiyada magaalada Shanghai. Midda la yaabka leh ayaa ah in gurigan uu laamigan ka dhisan yahay in ka badan 10 sano. Dowladda Shiinaha ayaa lacag siisay qoyskii deganaa gurigan si ay uga baxaan, balse dheg waa ay u dhigi waayeen oo waa iska diideen inay ka baxaan gurigan. Ugu dambeyn, laamigii ayaa laga dhisay hareeraha gurigooda. Nambarka 3 waxaa ku jira guriga Wu Family. Qoyska sita magaca Wu Family ayaa ahaa kuwo degan gurigan ilaa 3 jiil oo ay ka mid ah ay deganaayeen dhulkan, balse ugu dambeyn waxa uu yimid shirkad ka mid ah shirkadooyinka ganacsada dhulka. Sanadka markuu ahaa 2004, shirkaddii ayaa damacday in dhulka ay ka saaraan qoyskii deganaa gurigan, balse way awoodi kari waayeen. Kadibna hareeraha gurigooda ayay ka qodeen god gaaraya ilaa 10 mitir. Sidoo kale waxa ay gurigooda ka jareen korontada iyo biyaha, iyagoo aaminsanaa inay qoyskan ay ka bixi doonaan ama iska iibin doonaan gurigooda dhibaatooyinkaas awgood. Balse qoyskan ayaa ahaa kuwo soo taagan, waxayna ku noolaayeen gurigan ilaa 3 sano, waxayna ugu dambeyn gurigan ay ka baxeen sanadkii 2007 iyaga oo markaas lacag qaatay. Gurigii kala barka sanadka markuu ahaa 1957, shirkad uu magaceedu yahay Windlass Holdings ayaa waxay iibsatay dhulal ku yaala magaalada Toronto. Shirkaddan ayaa dhulalkii ay iibsanaysay ayaa waxaa ka mid ahaa guri dabaq ah. Gurigan ee dabaqa ah waxaa iska lahaa nin, wuxuuna u oggolaaday shirkaddan qayb ka mid ah dabaqiisa, halka qaybta kale uu u diiday inuu ka iibsado. Ugu dambeyn, dabaqii ayaa haaf la dumiyey, halka haafka kale la iska dhaafay maadaama milkiilihii lahaa uu diiday. Xilligan la joogo, gurigan waa guri caan ka ah magaalada Toronto, waxaana u soo dalxiistay dad aad u fara badan, waxaana loogu yeeraa Half House.